السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين محمد شيخ إبراهيم كنياوي halka joogaana waa garoonkii magaalada Garowe General Abshir magaalada Garowe weeyaan maanta ayaan runtii waxa soo gabagabeeyay safarkaygii dacwo ee aan ku joogay muddada usbuuca ku dhow maamul goboleedka Puntland waxaan halkan aan doonayaa inaan uga mahadceliyo cid walba oo ka qayb qaadatay in barnaamijka dacwada ah uu hirgalo oo ay runtii ugu horeyso dawladda ama xukuumadda Puntland iyo ciidamada amniga iyo shacabka reer Puntland khaasatan magaalada Garowe waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa culimada diinka sida quruxda badnaa runtii hawsha ila waday waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa warbaahintii ila hawlgashay idaylkood tala iska maqla iyo tala iska arka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa telefishinka SBC oo runtii si live ah ugu gudbiyay malaayiin ruuxood dalka dibadiisa ku nool ama dalka hareerihiisa ku nool aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa maxaa yeelay rasuulka dhahaya sallallahu alayhi wa sallam man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu qofkii wanaag idin gala gacan maalin un idin geysta u abaalguda hadaydan u abaalgudi karin u duceeya u badiya ducada wax taraysa walaalayaal inta haddaan uga baxo gobolada aanan gaarinna sida Qardho Boosaaso Eyl Gaalkacyo runtii waan soo laabanayaa waqti badan baan rabaa in aan siiyo maalin iyo laba maalin waxba u tarimayso in aan idin la joogo muddo 2 usbuuc ama muddo bil ayaan doonayaa dib ayaan isu soo xirxiri doonaa goordhow ayaan idinku soo laaban doonaa ha u malaynina inaan idinka tagay waxaan halkan aan rabaa fursadan qaaliga inaan uga faa'iideysto in aan cambaareeyo si xun waliba aan u cambaareeyo arrinkii dhacdadii foosha xumayd gabadheeni waa gabadhaydii waa gabadhaadii idaylkeen waa gabadheeni gabadhii da'da yareedii aan qaan gaarin Aisha Allah u naxariistee ficilkii ama falkii waxshinimada ahaa ay kula kaceen mujrimiinta ay kula kaceen gabadha waxa loo geystay dil kaliya ma ahayn bal gabadha dhulmi fara badan baa runtii lagu sameeyay gabar daa'iyar oo aan dhalay oo aad dhashay dhexdeena in sida lagu yeelo waa ayaan darro kale weeyaan marka falka loo geystay waa zino waa dil waa argagixis waa maaragtay deeyadiyo jirkeedii lagu ciyaaray indhihii laga saaray la dooxay wax walba xun baa loo geystay falka waa fal ilaahi ka carood bal wallahi waa fal samado iyo dhulku ay la ooyaan waa fal samadu ay la dildilaacdo waa fal hadaynan si dhaqsale arrinka u xallinin mujrimiinta qabiil ma lehe aan la soo wada qaban dhan looga wada jeysanin wallahi waa fal ilaahi inugu cadaabayo waa fal amnigeeni aynu ku waayino ilaahi baa dhahaya subhanahu alladheena aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulmin fa ulaa'ika lahumul amn wa hum muhtadun kuwa alle nabi rumeeyay iimaan uurkooda ilaahay galiyay laakiin iimaankooda falkooda dhaqankooda dhulmi ka fogeeyay kuwa dhulmiga iska dheereeyay kuwaas ayaa waxa oo dhulmiga fogeeyay oo dhaalimkiina qabtay madluumkiina u gargaaray kuwa ayaa ilaahay wuxuu siinayaa amni iyo amaan ayuu siinayaa laakiin haddii qabiil uu yeesho qabiil hadduu yeesho waxaan hubaa qabiilka ilaahay inuu idaylkood wallahi uu maaragtay amniga ka qaadayo bal inay mujrimiin wada noqonayaan bal inuu ilaahay cadaabayo haddii ninka ama dhalinyarada haddii lagu garab istaago qabiil ma aha mujrim qabiil ma aha dhaalim qabiil ma aha waxaynu ilaahay uga raadsanaynaa raxmadiisa iyo amnigiisa ilaahay baa bixiye in aan ninka soo saarno oo aan dhahno mujrimkii waa ka hadduu kula dhashay dheh waa kan waa walaalkay waa kan waa mujrimkii dheh ninkaa ha la soo saaro dadkaa ha la soo saaro maxkamad caadil ana ha la keeno kaaba qabiilada oday dhaqameedyada ilaahay arrinkan aan uga baqno xaal ma jiro
hadda ka hor baa gabarna laga xoogay intaasoo xoolaha la bixiyey tanna xoolaan bixinaynaa war soconaya ma aha tan oday dhaqameed ma laha tan ummadda oo dhan ayaa u kacaysa gabadhan innagoo dhan baynu wada dhallay gabadhan cadaalad ha loo mariyo iyadana allah u naxariisto reerkeedii sabir iimaan allah ka siiyo innagoo dhanna way naga wada dhimatay sabir iimaan allah inaga siiyo tan aynu ammaan ku raadsanno ilaahay kaga raadsanno wadajir kaga raadsanno midnimo kaga raadsanno roob dhulku abaari kaga raadsanno caaisha cadaalad ayaan u rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu